السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي waxaan wanaagsan dhamaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanaw meel kastay joogtaan waqti kastay dhintahay waqtiga waxay idin wacnaado badbaada iyo naxariista eebana korkiina ha ahaato. ku soo dhawaada channelkeena Mustafa Tafay. maanta waxaan idin wadaa barnaamij insha Allah taala ka duwan barnaamijyadii hore. barnaamijkeena insha Allah taala si share gareeya waa barnaamij khayr ah la sii wadaaga walaalihiina kale waxa weeyaan si uu u gaadho dad badan oo waxa weeyaan khayrka iyo wanaaga uga faa'iideystaan. channelkana waxa weeyaan subscribe saar kana mid noqo oo ku xidhnow channelkan si waxa weeyaan wanaaga aynu halkan uga wada soconay iyo khayrka aynu ka soo gudbinayno. maanta kelmadeenu waxa ku saabsan tahay ama barnaamijkeenu waxa ku saabsanaan doona insha Allah taala fadliga ay leedahay maalinta waxa weeyaan Ashura ee inagu soo foodle insha Allah taala ee sabtida. waxaanu ku jirnaaba siin wada ogsoonahay bishii Muharram ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala magaciisa isugu nisbeeyay isugu magac daray وربي جل وعلا أوليه شهر الله المحرم وبال كترت بلها حرمة بدن وبال وحويا إلهي سبحانه وتعالى وإسقو مقعدري وحانا علماء آيات المامان صوم لصوم مرك لقيمة دو بشهر رمضان أي صوم لصوم وفضل بدن بشهر رمضان marka laga yimaado soom la soomo sunna waxa ugu fadli badan bishan shahrullah al-muharram waa bil ay ku jirto maalin soonkeeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaafo sana kaamila. maalintan waa maalin qiimo badan waa maalin aan inagu dhaafi karin ciyaar inay nagu dhaafto aanay haboonayn waa maalin mudan in la soomo laga faa'iideysto waa maalin aad ku helayso maalin kaliya soonto oo darajo ku helayso sanad Ilaahay subhanahu wa ta'ala dunuubtaada ku dhaafo. waa maalinta qiimaha badan waa maalintaas waxa weeyaan bisha xurmada badan ku jirta waa maalintaas soon sunna la soomo bisha ugu fadliga badan ku dhex jirta waa maalintaas نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وصومي ومالنتاس وليبا waxa weeyaan laga horeysiinayo ama laga dambeysinayo maalinta sagaalaad iyo maalinta 11aad oo taasina tahay khilaaf iyo yuhuud oo waxa weeyaan soontay maalintan ودبتنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ويلي haddii aan gaadho maalinta sagaalaad ayaa aan soomi doonaa waa maalinta sagaalaad ayaa aan soomi doonaa waa maalintaas balse nabigeena Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ma uu gaadhin tii xaq ahayd ee geeridii ayaa ku timiday. walaalayaal qofku haddaan soomin maalinta sagaalaad uu soomo maalinta 10aad oo kaliya way banaan tahay waa maalin qiimo badan weeye. laakiin khilaaf iyo yuhuud ayaa looga horeysiinayaa oo nabigu sallallahu alayhi wasallam waan uga horeysiin maalinta sagaalaad baan soomi. maalinta sagaalaadna sida aynu tilmaamnay nabigu sallallahu alayhi wasallam sanadii dambe ma u gaadhin. maalinta 10aad qofku hadduu soomana waa inaga tilmaamno waa ay banaan tahay waa maalinta qiimaha badan ee aynu uba soconay hadafkeenu uu yahay inuu ka faa'iideysano sanadka kaamilka dunuubteena Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaafo. qofku hadduu maalinta 10aad soomo maalinta 11aadna waa uu ka dambaysin karaa. marka walaalayaal naftayni nafihiinaba waxaan aan ku boorinayaa inaynu ka faa'iideysano maalmahaas oo aanay nagu dhaafin. waa maalinta sabtida ee soo socota maanta khamiis baynu maraynaa jimcaha ayaa maalintii sagaalaada maalintii 10aadna waxa weeyaan sabtida qofku waa uu soomi karaa
jimcaha iyo sabtida ama sabtida iyo waxa weeyaan axadda ayuu israacsan karaa. aynu ka faa'iidaysano. ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa inuu waxa weeyaan ajarika iyo xasanaadka aynaa kuwii ka qadin ilaahay subxaanahu watacaala inaanu inaga dhigo kuwa waxa weeyaan ka faa'iidaysta rabbi subxaanahu watacaala inaga dhigo. baraarujintaas ayaan waxa weeyaan usoo galay, aan idinku soo fadhiistay inaynu isla waxa weeyaan wadaagno. idinkuna sii gaarsiiya walaalaha kale oo sii sheergareeya waxa weeyaan sii gudbiya. intay barnaamijkan kan lamida ku kulmayna waxaan idinku dhaafaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.